okay qaabkan muxuu ahaay inline css soo qaabkan waa isla soo aragnay waxaan soo sharxay muuqaalkii hore waxaan dhahay markaa waxaa jiro qaab kaloo ka fiican kaasoo ah internal css qaabkaas ayaa ka fiican aan dhahay sida ujeediin hadda waa kaasa wax laaliyo waxaana waa noo habaysan yihiin balse waxaa jiro qaab kale oo kasii fiican qaabkan waa isticmaali kartaa laakiin waxaa jiro qaab kale oo ka fiican so si aan u sharxo internal css qaabkan waa inline si aan u sharxo internal css waxaan u baahanaa horta marka ugu hore inaan waxaan sidooda kusoo celsho balse waxaan sameynayaa ka hor intaa taa sameyn waxaan sameynayaa inaan labadooda aan isgarab dhigo si aan hal mar iskula aragno labadoodaba kan waa soo qaadayaa asna geeskan ayaan geynayaa okay waa kaasa kana wax yar iska yareynayaa maxaa yeelay kan ayaa u baahannahay badanaa kan ayaan sida badan u baahannahay kana waa iska xirayaa si aan shaashada aan wax fiican ugu helo okay weli wax yara u baahanahay kanoo kana iska yareynayaa okay waa kaasa waa yarey soo hal sadar arka ahay soo jabiyaa leeyahay okay hadda shaashada ayay wax dhan ku wada jiraan waxna qarsan ma jiro okay marka si aan u sharax waxaa dhahay waxaan rabaa inaan kalaradan dhan aan ka bixiyo soo kalaradan dhan ayaan ka bixinayaa kan waa ka baxshay sidooda hore ayaan kusoo celinayaa marka aniga ayaan ka bixinaya markii aan ka wada bixiya soo noqonaa soo sidaa ujeediin hadda waa ka wada saasaaray iyaga dhan halahaas waa usii dhadhawey kartaa dhib ma lahan waa kaasa dhammaantood waa ka wada saaray xataa kan xataa waa ka bixinayaa okay hadda wixii dhan waan ka baxshay safe waa dhahay haddii aan refresh aan dhaho wax kasta waxay ku noqonayaan sidoodii hore okay sidaa ujeediin waa kaasa soo hadda ayaan gelayaa marka internal css so internal css hadda ayaan gelinaa intaa ayaa imaanaysaa waxaa imaanaysaa iska hubi headkan waa kana headkan ciidka ayaa imaanaysaa kadib gudihiisa waxaan ku qoraynaa style waxaan qoraynaa taggan kaasoo style ayaa leedahay style markaa dhahdo waa kaas taggi waa kana intuu ka furan yahay wuxuuna ka xiran yahay inta soo styleka hadda waa sameyn balse haddii aan refresh aan dhaho waxba soo ma kordhin soo hadday waxay ahayd haddii aan rabo in aan kan aan kalarka aan ka bedelo aan bii kale aan style gooniya aan siiyaanba nusqad gooniya waxay ahayd inaan dultaga kadibna style aan dhaho inlinkii qaabkii hore oo casharkii hore aan soo sharxay balse qaabkan waa qaab kaloo ka sahlan waxaad sheegaysaa keliya taaga aad rabto in aad styleka aad ka bedesho magaciisa had tusaale waxaa rabnaa taggan la dhahay h1 ayaa rabaa inaan ka bedelo styleka soo maxaan sameynayaa tagga magaciisaan fiirinayaa waxaa la dhahay h1 inta ayaa imaanaya waxaa leeyahay h1 okay waa qaabka koowaad okay h1 markii aad tiraado kadib waxaa shift ayaa qabanaysaa waa kaasa calibration aa furaysaa waxay ku xigtaa calaamadda bida before benta geeskeeda waaye haddii aa laadahay soo hadda waa kaasa waa furnay soo hadda waxaan u baahnaa styleka ayaan u baahnaa marka waxaa leeyahay color oo kale red ayaa leeyahay maxaa dhacaya marka waxaa dhacayo bal hadda fiiri sida hadda igu fududa shalay markii aan colorkan oo kale waxaan oo kale shalay markii aan sameynin waxay ahayd inaan sadar kasta aan dul tagno kadibna aan style furno aan gelino aan red aan siino min sadar kasta laakiin maanta maxaa ku xaliyay wixii aan shalay sadar badan aan ku xalinayno 1 2 3 4 waxaan ku xaliyay kaliya intaan soo isla hadda waa dareemaysaa iyadoo hadda isha website-keenu iska yahay demo wax tusaale leh oo website badan aan qoraynin hadda awoodda uu leeyahay internal css waa indhahaaga ayaa ku aragtaa soo waa soo powerful soo marka kadib waxaa rabaa tusaale haddii h1ka waa doortay haddii aan rabo ka waran bdan soo tagga ayaa fiirinaysaa magaciisa waxaa la dhahaa b soo paragraphka ayaan tegayaa
waxaa magaciisa waa p intee ka arkay waa kana magaciisa so p ayaa leeyahay asna kan waa sidii nashqadii oo kale camal kan igu soo celi waa sidii nashqadii oo kale asina card braces and braces sida u taqaan waa furaysaa so waxaan rabaa widthkiina xadidaa rabaa sidii tii hore camal width waa kaasa waxaa leeyahay 400 oo pixel ka rabaa widthka so refresh ayaa leeyahay waa kaasa widthka waxaa laga dhigay 400 oo pixel so tusaale waxaan ku daro kale h2 oo kale ku daray h2 aan ku daro waxaan dhahay hello people tusaale waay haddii hkan way ka duwan tahay jaasi kale had qiyaas hitan maxay kala qaadan doontaa inta imaana waxaa la refresh sida ujeeda hitan wax kala ma qaadan waa black waa madow by default waa madow so hitan haddii aan rabo inaan color aan siiyo waxaan tegayaa inta okay waxaa leeyahay h2 hadda syntaxiska macnaha kan waad u degi doonaa bakastoo macnaha si gooni ayaan u sharxi doonaa iyagoo muuqaal wataan hadda keliya waa inaad kala fahantaa inline css internal css iyo mid kaloo noo soo socdo asna waa arki doonaa waa inaad kala fahantaa sababaha ay u kala fiican yihiin iyo saddexda qaab oo loo isticmaali karo style adiga ayay kugu wehlan tahay midka aad dooranaysid hadba sida aad u rabto shaqadaada inay kugu fududaato so hadda kan waa h2 okay magaciisa waa soo aragnay intaa imaanaysaa magacaas h2 ah rabaa inaan color aan shaqada aan ka bedelo so iyadan waxaa leenahay colorka oo kale waxaa leeyahay green okay green oo kale dhahay waa kaas colorkeeda wuxuu noqday green waxaa leeyahay oo kale border waxaa rabaa inaa border aan u yeelo hareeraha aan kasoo hareereeyo to pixel solid white okay waa kaasa border oo kale waxaan dhib male waa isla arki doonaa muuqaal gooni ah oo leeyihiin hadda keliya waa kan tusaale haddii aan iska dhaaf hataa kan macnaha muhiimadeena keliya waa inaan fahanaa internal sida loo isticmaalaa so waxyaabahaasa ku wareegna syntaxka muuqaala u gooniyayaan midba midkooda kasoo socda marka gooni ayaan u sharxi doonaa so qaabkan hadda waa okay saas eegana qaabkan hal dhib ayuu leeyahay oo tusaale hadda waxaan sameynayaa fiiri midda kale waxaa idinka hilmaama lacala hadda h2dan waa cagaar hal mid ayaa rabaa taas intaan gaarin haddii aan h2 kale aan koobiyeeyo tan aan koobiyeeyo koobi aan dhahay intaa imaaday kadib waxaa dhahay basti okay iyada la koobiyeysta waxaa iska midin hadda intaa imaana labay noqonaa okay lama way noqdeen balse maxaa dhacay lamadii wuxuu haystaa stylekan aan sameeyey haddana isla stylekii oo qaatay maxaa yeelay waa isku magaca kan waa h2 kana waa h2 waxaa dhahay h2 kasta haddii rabto 100 ha noqoto haddii rabto 1000 ha noqoto h2 kasta oo inta imaado waa inay qaadataa colorka screen h1 iyadana waa sidoo kale h1 kasta waa ina colorkeeda noqdaa midabkeeda guduud sida u jeediin anigoona waqti badan iga bixin halahan kaliya aan ku sameynaya kadibna amarkiiga ayuu qaadanayaa computerka so marka tii aan sharxay haddii hadda aan file kale aan sameynayna tusaale file kale ayaan abuuraya inta gudaheeda waxaan leeyahay about html oo kale okay about html so shortcutkeena leeyahayna halahan dhan asiga ayaana siinaya so tigay kan iga xir si aan shaashadan aan aragno so waa iska xiray marka kana hal linki u yeela horta kana imaanaya linki ayaa u yeela waxaa leeyahay tag linki sida loo sameeyo waa taqaanin linkigan wuxuu aadaa leeyahay kan hadda waa indexka waa kana indexka ayaa joognaa markan haddii lagu dhufto waa inuu geeyaa about-kan dheh okay waa inuu geeyaa about-ka so about-ka inuu geeyo haddii aan rabo waa inaan u tilmaama waxaa leeyahay marka about html waa kaas asiga ay sii kan waa ku diri kartaa kaasoo
current directory oo folderkan hadda aan ku jirno folderka aan ku jirno magaciisa waa css folderkan garaadi filekan la dhahayo about html so okay kan iga xir save ide okay linkigan waa kaas hadda refresh adoo waxa kusoo siyaadaya linkigeena wuxuuna geenayaa about-ka laakiin about-keen waa ever so si aan wax ugu darno halaan ayaan ku biyeysanayaa wax kala maro kaliya intaan ayaan ku biyeysanaynaa okay waxaan leeyahay copy okay waxaan tagayaa about-keen waa kan boodiga imaana kadib waxaan leeyahay paste okay isla intii ay isla soo koobiyeystay linkiga la bedelaya linkiga hadda about joognaa marka waxaa rabaa inuu geeyo home-ka so asna home-ka hadda dii aan inta ku dhufto home-ka aan ku dhufto kan waa magac laakiin waxaa muhiim ah linkiga meesha uu ku qaada linkiga wuxuu ugu soo celinaa home-ka so waxa home-ka inuu ugu soo celiso mara waxaa rabaa inuu geeyo index-ka okay index-ka home-ka oo kala bilaab waa iska dhigi kartaa amba index-ka labada folder magacooda waa isku mid ah ka dhigi kartaa laakiin index-ka badanaasi waxaa loo qaataa home aa loo qaataa so refresh oo kale iska dhaw hadda wax isbedel ma arkeen so balanti jaabin hadda waxaan joognaa index-ka saan tusi aan weynayo waxaan joognaa hadda page-kan la dhahaa index haddii inta ku dhufto inta isbedelaysa firi about-ka ku dhufanaana okay waa kaas wuxuu tagay about page-ka so hadda aan soo noqdo markaa okay about sida u jeedin wax isdayla male waa qaleel so waxaa laga yaabaa inaan dhahdo okay dhib ma lahan waxaan soo qaadanayaa waxaan ogaataa waxaan rabaa hadda home-kii oo kale haddaa dhaho stylekan camal inuu qaataa rabaa about-ka so waxaa laga yaabaa inaan dhahdo kale waxaan sameynayaa okay dhib ma lahan waxaan sameynayaa inaan dhahdo stylekan ayaan soo qaadanayaa maxaa yeelay kan ayaan soo koobiyeysanaa no problem iska soo koobiyeysanaa dhahday okay fine soo koobiyeyso intaa imaanay kadib waa keentay kadib waxaa dhahday paste waa soo koobiyeystay wax dhibo ma lahana tiri okay save ayaa dhahday okay waa kaasa dhibka waa ka baxnay oo hadda colorka wuu qaatay laakiin macnaha hadda labadan hadda waxa aan sameyn kaliya waa laba file kaliya waa laba file kow labo waa laba page website-keena macnaha waxaa website haddii uu caalami yahay waxaa laga yaabaa inuu ka koobayan 10 page amba kala 5 page 20 page kan ugu yaraa 10 page meelahaas camal ka kooban amba adiga baahidaada ku xiran tahay laakiin badanaa website-kaaga macnaha page badan oo yeelanaa so website-keena si uu dynamic u noqdo oo hal meel haddii aan isbedel ka sameynayno page-ka kale aan ka arkeyno waxaan u baahanaa waxa la dhahayo external tusaale hadda kan hadda waxaan joogaa index-ka oo kale waxaa la yidhaho kale h1tan h1 oo dhan waxaa u rabnaa inaan farta aan xoogaa awoweynin tusaale ka soo qaata fonti oo kale dhahay font size oo kale waxaa dhahay 4 fartii oo kale awoweynay h1 waa kaasaa hadda waxaan joognaa about kasoo home-ka tegaynaa waa kaasa sida u jeediin home-ka farta way weynaatay laakiin hadda isbedelkan aan ka sameynay index-ka ma ka dhaceeyo about page-ka hadda daanta farta waa sideedii waxba isma bedelin farta waa sideedii soo si aan isbedelkii aan inta aan ka sameynay si aan u dareeno page-kan waxaa jira waxa la dhahayo external css so external css waa asigana waa sharaxna hadda kaliya waxa ku furan inaa soo koobiyeyso kaliya hadda waxaad sameyn kartaa inaad baahidaada ku hayso inaad soo koobiyeyso so kasoo qabo page-kaaga waa 20 page ma inaad inta furto aad tagto aad ku dhufato aad kusoo koobiyeyso aad dhigto tusaale aad fiiri kanaad waa soo koobiyeynaa koobiyaa dhahaya okay koobiyaa dhahay waa kanoo kale hadda waa keenay baastia ku dhacday wixii waa aragtay refresh data farta weynaanaysa hadduu page kala diri lahay oo jiri lahay
isla sida ayaan sameynaya marka waqti badan anigoo wax yar ku xali karaa waqti badan iga baxa soo waxaa jira waxa la dhahaa external css marka tutorial kale ayaan ku sharxayaa muuqaalka intaas oo koobiya video like channel subscribe mahadsanid